عليها عدقان عليها عدقان إلا كما هليني وردي وربا إذا هو اسمرين عليها عدقان عليها عدقان إلا كما هليني وردي وربا. Political character and on the outlook of these people, of which the main one is hard. Nomadism, which breeds a very strong independence, pride of self-reliance and silence. The geopolitical position of Somaliland at crossroads between the Arab and African worlds that has unmistakable remarks on trading partner and economic activities. Following the restoration of Somaliland independence in 1991, there has been subsequent establishment of functioning political and administrative organs of governance that maintain security and stability in the country. As a result, all efforts were made to rebuild political, economical, and social institutions that have been devastated by the prolonged civil war. First of all, let me give you brief background information of our institution. Somaliland Chamber of Commerce, Industry and Agriculture was established 25 October 1993. It is an independent organization working towards promoting and advancing the economic growth of all sectors of business community, the vision of forging new bonds and commercial and investment cooperation between Somaliland and the rest of the world, with a mission of offering guidance and assistance of all types of business. Currently, the Chamber of Commerce has about 4,500 members, and out of this number, about 1,000 are women. The growth in the number of business registration translates into the growth of the formal economy and underlines the increased confidence of existing business and investors, as well as in the level of the security and political stability. Fortunately, the business community now, for their traditional entrepreneurial skills, stepped in to fill the vacuum created by the sudden collapse of the brutal Somali regime. The commercial activities started in full swing. الرحمن الرحيم aad u mahadsantiina marka koobaad runtii inkastoo gabagabadii la aqbali karo qaabka shirku u dhacay haddana waxoogaa turanturooyin ka caqabado waa soo dhacay dhammaantoodna salka ku hayay fiisayaashii sidii loo heli lahaa wadagsoontoo dalka Jarmalku safaarad kuma laha Somaliland Somaliland lama aqoonsano baasaboorka Somaliland lama bixi karo ganacsi kala gaar ay sitaan arintaas waxay keentay runtii safaaradihii dalalkii ugu dhawaa Jarmalku ku lahaa fahamsiintooda sidii ay ganacsiga Somaliland u sii lahayn fiiso mar walba fiiso processkii oo taagan ayaa timekii shirka la qabtay uu imanayay uu dib u dhacay dabadeedna taasaa keenaysay in haddana waqti kale la qabto si wanaag markii dambe waxa runtii wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ay ku invite gareysay dalka ku-xigeenka safiirka Jarmalka ee dalka Kenya markii ay timi runtii gabadh bay ahayd si wanaagsan ay u fahantay mushkiladii iyo caqabadii hor taagnayd shirka aadna way u daneynayay Jarmalku inay halkan shir maalgashiga sidii Somaliland loo maalgashin lahaa iyo fursadaha maalgashiga Somaliland ka jira maxay yihiin inay dadkooda ay ogeysiiyaan oo kaligeena hina guud ahaan baad mooday marka inay ku jahaysan inay dalka Afrika wax badan ay ka ogaadaan oo ay ku jahayaan dadkooda inay maalgashadaan sida awadeed markii dambe runtii
ayaa loo helay marka arrinta ugu weyn runtii arrintaas ayay gudoomiye dabcan saad sheegtay turunturmay baa shirka soo dhacay kama dambaysta uu qabsamay haba xadidnaato sharaayka ka soo qayb galay shirkadii ka soo qayb galay sidii muuqatay waxay danaynayeen in iyagu fikraday wataan ay Soomaaliland tagaan halka sharaayka Soomaaliland ay sharaxayeen waxyaabo ay gudaha wadanka ku hayaan ma muuqata ay muuqan weeyday ama waa raad doorkii in sharaayka Soomaaliland ay wax soo saarkooda jarmalka suuq uga raadshaan horta Soomaaliland waxay leedahay gool ay doonayeen xaqiijiso ama ujeedooyin bay leedahay sektarkiya waa isku jeedo annagu halka waxaan u joognay ma ujeedada xaqiijinay ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliya ku wada socda wax weeyaan inaan iibino fursadaha ama badeecad Soomaaliland ay leedahay oo u baahan marketing iyo suuqayn ama haato fursado maalgashiyo Soomaaliland ka jiraan u baahanahay investors iyo maalgashadayaal u baahanahay labada ujeedo ayaan doonayna halkan aan ka xaqiijino kuna qancino muxuu maalgashadayaasha Jarmalka iyo cidii shirka ka soo qayb galaysa shirkadaha طبعا dawladda qofka ganacsiga had iyo jeer dawladdu de si guud bay wax tilmaantaa laakiin mesela for example marka shirkadihii PlayStation ka jeedinaya qofka maalgashada halka Jarmalka jooga wuxuu ka dhax akhriyaa markuu qofku company-giisa iyo history-giisa iyo golosha iyo guushu gaaray uu ka warramo waxay qancinaysaa soo dhaweynaysaa ku qanciisa inuu yimaado dalka had iyo jeerna waa laga maarmaan qofka maalgashadii markuu dalka la tagayo inuu helo baatina xogogaala oo loo kala oo wax la qabsado sida awadeed baan ugu dadaalay in muxuu ahaa sector kasta oo dalka ka jira cid matasha in la helo inkastoo muxuu meel muhiim ah dad loogu tala galay ay runtii habsaameen ama u suurtagal wadeen fiisihi ay helaan وضعي محمد شكري قدوميها جناحات Soomaaliland in marka la soo xolayo ganacsatada ka qayb galaysa shirarka noocan kala in waxa nagu maqaalaa in shirkada reer Soomaaliland ay ugu danayeen shirkada ka soo qayb galaan in laga reebo gam noocaas soo أنا waxaan ay gudoomiyaha runta ganacsiga Soomaaliland iyagana accountable wada soo tayo waheed madax banaan oo ganacsatada leedahay maamulka joogana iyaga doorta oo dawladdu wax faragelina ku leedahay ma jirto waxaan u taaganahay dantooda iyo wixii maslaxadooda wixii fursade ama anagu aan soogaan ama dawladda ha nagu wargeliso si siman baa loogu gudbiyaa laba siyoodna ugu wargelintu ku dhacda kolay membersku de canaawintooda aanu haynaa marka si gaargaar oo toos oo qoraalaha invitation arrinta caynkaas ah shirkada madanaynaysa iyo xilliga ku soo jawaaba kamina walba la geeyaa xafiiskiisa warbaahintana waan uga sheegay fursad caynkaas si cid doonaysa danaynaysa ka qayb gashay xafiiska ay timaado si loogu sheego waxyaabaha looga baahan yahay marka ma jirto cid aanu ka reebnay iyo cid aanu si gaar ah soo xulnay toona ma jira time baa la siiya bixiya marka time hadii hawsha aanan anagu wadan hadii mesela arrimaha qaarkood de anaga ownerkiyo qaban qaabina waqtiga iyo xilliga ku habboon anaga goyna waxyaabaha qaarna de dawladda ama shirkado kale dibadda cid kale la timaada marka qorshaha ay deynoola yimaadaan baan raacna marka xilli baa la bixiya xilliga cidii ka soo jawaabtay muxuu ahaa application-keeda keentay inay dareynaysan ka qayb gasho human information-ka iyo waxa looga baahan yahay inuu sameeyo si arrintaas ugu suurto gasha aan u gudbina marka saasay ku timaada laakiin cid gaar oo dhabarka la taabto ma jirto waan kartay gabagabadii hadda joogna in shirkii muhiimadiisa waa soo dhamaatay maxaa kaaga baxay gudoomiye kan maxaa Soomaaliland mustaqbalka halkee uga sii gudbi kartaa markaan xiriirka Jarmalka iyo Soomaaliland eegno horta guud ahaan waxaan filayaa waa shirkii labaad ee noociisa ah ee Soomaaliland oo qabso kii hore waxa 2014kii London UK ayuu ka dhacay madaxweynaha hogaaminayay waftiga Soomaaliland ujeedadiisuna intan u baxay qabanqaabadiisu runtii way ka ballaarnayd waana ka waafisay
muxuu ahaa kana waa kii labaad isku ujeedaan in anagu tii aanu ka lahayn taa laga lahaa ka dhacday UK ayuunbaa kana laga lahaa runtii dibudhicii markii aan weydiinay organizerka waanu arkayaa inay muxuu ahaa runtii sharikadihii iyo dadkii muxuu ahaa ay ka soo qayb galaan ee markii hore danaynayay shirka liiskooda aan haynin in badanoo ka mid inaanay iman runtii waxaa muuqatay markii 2 jeer dhilay dhacay laga yaabo qaarkood iyagoo buukii hoteelkii wax walba samaystay oo ku talagalay shirkideed markii ugu dambeysay loo sheegay inaanay arrintaas shirki baaqday waxa laga yaabaa in badanoo ka mid muxuu ahaa maalgashadayaasha ama shirkadii Jarmalka inay kalsooni ay ka luto dabeedna daba dhaco aanay keentay inay maartay shirkada maanta la dhici maayo taasoo keentay markaa shirkado badan oo iman lahaa inay baaqdaan laakiin guud ahaan sida idinku wada arkayseen message-kii aanu sidnay waxaan isleeyahay wuu baxay si waafi ayuu u baxay inkastoo sectorska qaar aad u muhiim ah dadkii matalayay ay naga habsaameen sida kalluunka oo kale oo arkayseenoo 2 shirkadood oo loo soo xulay inay matalaan labadiiba way baaqdeen ujeeddo weliba marka aanay soo sheegin ayay ku baaqday hal su'aal ma ku soo gudoomiye marka laga tago shirkan guud waxa jiray in kulamo kale oo in adiga wasiirada xukuumadda ka socda hay'ado kala duwan oo dawladda sharka mid la soo qaato kulan ka mid magaalada Frankfurt kula soo qaateen maxaa iyaga kulanadaas wadaarnaa inuu information ugu kordhin كل محوها هيئات official oo dawladda ay haayeen marka arrimaha runtii muxuuha dee private ahayn ama runtii anuga authorizer ku ahayn inaan warbaahinta u sheego ayaa laga wada hadlayay laakiin guud ahaan dee muxuuha sidii dalka xiriirka ka dhexeeya Jarmalka iyo Soomaaliland oo ogsoontiin dawladda Jarmalku marka mashaariic fara badan ilaa 5 mashruuc ayay maalgashi ku samaysay Soomaaliland ka mid yihiin biyagelinta Hargeysa xagga muxuuha deegaanka wadooyinka qaar wadada u dhaxaysa Hargeysa iyo Gabiley muxuuha ilaa 5 mashruuc ayay runtii ay gacanta ku hayaan ama wax ka bixiyeen inkastoo taa biyagelinta Hargeysa ugu yahay marka runtii waxaanu ka dareemaynay inay danayn fara badan ay ku qabaan muxuuha kulay qaar baa ku jiray Soomaaliland tagay waxay noo sheegayeen inay muxuuha isbedel badan oo ku dhacay markii ay Soomaaliland tageen imankana waxay ballan qaadeen runtii inay muxuuha mashaariic waaweyn Soomaaliland oo macaawino dawladda Soomaaliland la siinayo inay muxuuha ay samayn doonaan waa sugaynaa laakiin danayn fara badan iyo fahan ay soo fahmeen Soomaaliland iyo Soomaaliya wax kale ayaan ku runtii kala xaqay hadi aad maasatay gudoomiye